magaalooyinku waa sidaa oo miidhan galmudugna degmo walba karaankeed ayay dhismaysaa kuwa la taagayna waxaa ka mid a daartan deegaanka looga talin doono inta aanan u gudbin ubuuqda sheekada aynu ka wada dhaqaaqno halka uu ka bilaabanayo safar aan galmudug ku marayno oo sitimaanno qaadanaya waxay ahayd xilli lagu jiro bishii agoos oo ah markii la asaasay galmudug heestanna waa tii sannadkii hore sida weyn la isu gaarsiiyey oo mar kale lagu dabaaldegayo gaalkacyo oo gaddi walba siraadan yahayna annagu galabtii haddaan soo gallay habeenkii waxaan tamashleynaynaa shaaracyada magaalada weliba kuwa dhanka galmudug magaaladani waxa ay ka soo gudubtay waayo laga raystay markanna waa taa ku naalloonaysa neecawda nabadda lagu najaxay taasi waa garasho ka soo maaxatay maskax fiyow iyo garaad caafimaad qaba oo bulshada gobolka mudug wadajir u gardaadiyeen midhaha rayraynta ee muuqda waxaa ka mid a ganacsiga isu gudbaya ee dhan walba ka jira huteellada dhaadheer ee inta dhismahooda la dhammaystiray dhab loo naashnaashay calaamadahan isku sidkan ee sidan isu weheshanaya ayaa illin u ah horumarka gobolka mudug marka aan halkaa ka soconno saansaanta wanaagsan waxa ay sidaa u sii jiri kartaa kolka maanka lagu hayo oo aan laga mashquulin waxbarista jiil walba oo soo baxaya gaalkacyo geddiga aan ka warramayno galmudug waxa ay ka hirgelisay dhismayaal waxbarasho oo xilligan la intifaacsanayo kan waxa aan duubnay sannadkii hore isaga oo asaas jooga maantase inta la dhammaystiray ayaa xarigga laga jaray iskuulkani waxa uu ka mid yahay qaar badan oo galmudug ka hirgelisay deegaamadeeda wuxuuse uga duwan yahay in uu yahay dugsi loogu talagalay ama loo gaar yeelay ardayda baahiyaha gaarkaa qaba wuxuu ku yaallaa degmada gaalkacyo waxaa ka wada faa'iidaysan doona haddii ilaahay idmo dhammaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoore ayaa sheegay in wasaaraddu dadaal badan ku bixinayso dhammaystirka agabka waxbarasho ee ardayda baahiyaha gaarkaa qaba u baahan yihiin waxaan rabnaa oo kale oo maanta aan halkan isaga ballan qaadaynaa iskuulkan inuu yahay iskuul dadweyne dowladda galmudugna wasaaraddeedu ay gacanta ku hayso mar hore ayay ahayd in la keeno agabkii loogu talagalay ilmaha indhoolayaasha ah ee uu ka mid ahay baalkii fartii braylka ama qalabkii lagu qori lahay waan ka xunnahay runtii sida ugu dhaqsiyaha badanna asagana waa loo keenayaa iskuulka intii aan magaaladan ka shaqaynaynay waxa aan tagnay dhowr kale oo kani ka mid yahay waa dhisme dugsi dhexe oo wasaaradda waxbarashadu hadda farta ka jartay kaasi oo ardaydu ay duruusta ku qaadato halkan waa xaarxaar oo aan gaalkacyo sidaas uga fogayn qudheeda dhismayaal ayaa lagu biiriyey iskuulkan maadaama sannad walba ay siyaadayso ardada deegaankan galmudug hawshu intaasuun maaha wax badan ayaa la dhaqaaleeyey iyada oo xilla iska saaray wax kasta oo muhiima magaalada gaalkacyo marka koonfurta laga aado 7 kilomitir oo la maro waddada hobyo ayaa jidkani ka leexdaa waxa uu galaa garoonka diyaaradaha ee Oshaako geedkan quraca ah waddadu waxa ay ka martaa labada dhinac inta ii muuqata ee ishaadu ay qabanaysana isaga ayaa ku yaal laakiin injineerkii waddadan sameynaya waxa uu door biday inaan geedkan la jarin oo u badbaado maalmo shaqo kadib waxaan ka dhaqaaqnay magaaladaasi subax bilow u ah toddobaad aan sidaas u dhex soconayno deegaamo ka tirsan galmudug maxamuud jookar oo muuqaaladan duubay maanta ka hor gaalkacyo koonfur uma dhaafin mar haddii ay tahay xilligii ugu horraysay waa hubaal inuu magaalo walba magaceeda tayan doono taase waxaa ugu filan maxamed cabdulaahi oo horey u dheehan jiray safarradeenna saakaste shukaanta noo haya jidkan burburka lixaad kale ka muuqdo waxaa laga dhaxlay dawladdii milatariga ahayd isaga oo la intifaacsanayey in ka badan 35 sano markase wuu sii jeestay waddadaasi haddii aysan helin dayactirna inta lagu socon doono ma badna deegaamo dhowr ah oo aan marayno qaar ka yar kobcaya waxaa ugu sokaysa dagaari kuma raagin bartaasi oo aan haddiiba horey u dhaafnay dhulku sida uu u dhan yahay waxaa ka muuqda jiilaal ka raagay ee dhammaan dalka saameeyey marka abaari sidan u daran tahay oo deegaan ku dhalan beddelmo dhulku male daymo loo bogo oo waa dugul madow dunyaduna inkastoo aysan daaq ku qabin halkan ma jirto meel ay uga diga rogtaan oo waa dayrsug in doora kolka aan waddadaa ku joognay ayaan gaarray 3 xiglo iyadana waxaa ku xigta bandiiradley oo 70 kilomitir u jirta gaalkacyo bandiiradley hal xoogaa ah goorta la dhaafo ayay ku taalgelin sor magaaladaana marka laga gudbo waxaa laga baxaa gobolka mudug iyada oo la galo gobolka galguduud
halkan waa Cadaado oo ilaa 130 kiiloomitir u jirta Gaalkacyo maalinta aan soo galnay gelinkeedii dambe ayaan qaadnay muuqaalada degmadan si guud waxaa ka muuqda in ay samaysay kobac dhan walba ah sanad walbana waxaa kordhaya dhismayaasheeda iyadoo oo la hirgelinayo goobo bulshada muhiim ah subax hore ayaan tegaynaa dugsiyada degmadan laga dhisay qaar ka mid ah kuwaasi oo xilligan duruusta lagu baranayo midkan waa Cumar Faaruq oo ay gacanta ku hayso dalladda horumarinta waxbarashada ee iftiin kaasi ay wasaaraddu dhowaan dhismayaal ku kordhisay Faaruq waxaan ku xijinay dugsiga hoose dhexe ee Cadaado oo isagana markan ardaydu tagayso iskuulkaasi waxaa dhowaan xariga ka jiray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor wasiir waxaan kaga mahadcelinaynaa inaad cadaysay baahiyihii waxbarasho ee aan u kuurgalnay dhammaan deegaanada Galmudug markii aan marnay inaad ka jawaabteen intooda badan inta dhimanna ay tahay in ku jirta bablanka oo diyaarsan waa ku mahadsan tihiin sidaan u qorsheynay ugu talagalnay in looga jawaabay loona hirgeliyey dhismayaasha iskuullada ka fulay degmadan intaasi kuma koobna oo waxaa jira qaar kale oo wasaaraddu hirgelisay waxaan taangiga buuxsanaynaa aroor kale oo aan ka jarmaadayno Cadaado ogaa haddii aan jidka googo'ay sii raacnay ayaan u degnay bari oo aan cagta saaray waddada baxdo aadi jirtay muuqaalkan waxaan duubnay sannad ka hor mar aan jidkan ku safraynay bishii 7 sannadkii 2021 xilligaa dhulku ma bidhaan xuma muuqaalkan maantase waxaa ka muuqda raadka jiilaalka dalka ka jira 90 kiiloomitir kadib ayaan soo gaaray baxdo oo dharaartaas aan tegayno maalin uun ka hor baarlamaanka Galmudug u ansixiyey degmanimo ilaa wuxuu noo soo geliyay degmada baxdo in la aqoonsado oo baarlamaankii ama goliga sharci dejinta Galmudug ay aqoonsadaan way ku mahadsan yihiin gobolka Galgaduud si guud ayuu u yahay dhul ku wacan xoolo daaqeenka arigan iibka loo keenay suuqa xoolaha ee degmada baxdona ma dhogor xuma degmadan waxaa ku yaala ceelal jira ah oo jiilaalka lagu baxsado kuma raagin suuqa magaalada oo judhiiba waxaan u gudubnay dugsigan oo ay noogu damaysay waagii dhismihiisu socday inta la dhammaystiray ayay hadda wax ku baranayaan ardayda dugsigan dhexe ee degmada baxdo gobolka Galgaduud fasallada waxaa u dheer hirgelinta maktabaddan dugsiga laga dhex dhisay oo ardaydu wax ku akhristaan waqti badan ayaan ku qaadanaa aad iyo aad ayaan ugu faa'iidnay waan uga mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada Galmudug maktabadda waxaan rajaynaynaa in sanadida soo socda inay maktabayo waaweyn oo kuwan ka sii horumarsan ay noo dhisi doonaan baxdo waxa aan ka laabanay goor kulul kadib markii aan shaqadayada dhamaysanay annaga oo ku noqonnay jidkii aan kolkii horeba ka nimi 3 jeer aan deegaanka nimi Maxamed Jaamac halkaas ugu soo dhaweeyay aad ugu faraxsanahay 3 goor 3 sano isku xigteenan Maxamed Xasan Dhalo aan baxday isla nimid habeenkii haddii aan Cadaado ku hayanay subaxdii dambe ayaan duubnay ardaydan da' walba leh ee wax ku baranaya geedka hoostiisa arrintaasi waa tallaabo lagula dagaalamayo wax qoris la'aanta taasi oo ay dadka reer guuraaga ka gacan siinayaan aqoonyahan deegaankan ka soo jeeda geed hoostii wax ku barato iyo dad guri qasri wax ku barato waxbarasho isku meel kasta wax ka qaado ardaydan geedka hoostiisa wax ku baranaya labada deegaan qaradhi iyo gudruwa oo aan wax sidaas isu jirin waxaa dhexdooda laga dhisay daartan oo la rabo in wax lagu baro maalintii haddii aan halkaasi ka shaqaynay oo habeenkii ku hoyana Cadaado waxa aan subaxdii dama qaadnay jidka caasimadda aada marka Cadaado laga tago waxaa la sii maraa Xinlabi iyo Godin Labe dhuusamareebna waa tan dhismaheedu siyaadaya tan iyo intii ay caasimadda noqotay waxaa laga jeexay fooqaq dhaadheer oo hor leh iyadoo oo duug badanna la dayactiray dhismahan dabaqa ka kooban waxaa hirgelisay wasaaradda waxbarashada Galmudug oo halkaasi ku shaqayn doonta iyada oo wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug uu sheegay in dadaalkan oo dhan ay buddhig u tahay tayada waxbarashada Galmudug oo la hagaajay lagu tartamayo waxbarashadii lagu tartamayo ayaa Galmudug ka bilaabatay sidaad hadda u jeedidna dhowr iyo 70,000 arday ayaan hadda gaarsiinay markaan anigu imaanayna
xataa 30,000 oo arday bal ma aysan ahayn ardada reer galmudug marka waxaan dhigi karnaa muddadii madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu joogay oo anigu xilkan uu ii igmaday aan joogay isbeddelkaas isbeddel muuqdo kasakow kuwa la dhisay waxaa la dayactiray iskuulo badan oo uu ka mid yahay midkan galguduud kaasi oo qolalkiisu tirabel yihiin dhowaanna looga miciinay burburkii soo gaaray wasaaraddu waxa ay xoogga saartay dejinta nidaamka waxbarashada galmudug kaasi oo lagala tashaday khuburo waxbarasho oo ay ka mid yihiin barofesooro jaamacadeed runtii dhowr kol ayaa nala kugu yimid tala bixin consultation laga siiyey jaanis badan ayaan kala kulannay annagoo ku faraxsan oo leh wixii aad dareemayseen oo dhan waa gudbiseen ayaana nalaga tegey markii ugu hore halbeegyadii aan abuurnay haddana waa nalagu soo noqday halbeegyadii wixii laysla aqbalay haddana nala tusay haddana wixii aan ka arkaynay haddana saxnay mar saddexaadkiina waxaan ku guulaysanay inaan isla garanay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug sidoo kale waxaa ka socda dhismaha madaxtooyada oo meel gabagaba maraya madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid waxa uu sheegay in ay galmudug ka qabteen arrimo dawladnimada muhiim ah waxyaabaha la taaban karo aan wax ka qabanay waxay ahayd mideynta maaliyadda galmudug in galmudug ay leedahay maanta single treasury account oo hal account ay leedahay canshuurta cirif ilaa cirif la qaado ay hal account ku soo dhacdo waa subax kale oo aan afka saaray dhanka ay naga jiraan deegaamada galmudug ee waqooyi galbeed nooga beegan marka carra caskan gaarigu cagaha saaro waa cajaa'ib ka wacan laamigii googocna gobolkanna in uu horumar ka socdo waxa aad ka garan kartaa mashaariicda meel walba laga wado markii aan in doora ku joognay dooxooyinkan bannaan ee isha u wacnaan lahaa haddii ay doog yihiin ayaan soo gaaray Xeraale xeraalena waxa ay ka mid tahay qaar ka dhowaan baarlamaanka galmudug oo ansixiyey in ay degmo noqoto taasi oo ay ku kasbatay kobaca dhisme iyo dhaqaalaha ee ay samaysay sannadihii ugu dambeeyey degmadaasi waxaa laga dhisay mid ka mid ah dugsiyada ugu ballaaran ee galmudug laga hirgeliyey sida wasaaradda waxbarashada sheegtay iskuulkaas waxa ay ama ka hor xariga ka jiray madaxweynaha galmudug oo bulshada u sameeyey ballanqaadyo kale sida loo dhisay inuu baahidii dugsiga sare ee Xeraale daboolay ama dabooli doono waa ku kalsoonahay waa u jeednaa waxaan leenahay baahiyihii kale oo jirana insha Allah tacaala sida hore u sheegnay day tahay dhinacyadii caafimaadka iyadana sidaan sheegnay meel fiican bay kulli hadda maraysaa halkaas waxaan uga gudubnay degmada Caabudwaaq oo ka mid ah magaalooyinka ugu weyn gobolada dhexe habeenkii haddii aan ku hoyanay ayaan tagnay iskuulkan waa kii aan sanadkii hore ka duumnay isagoo ardadu fadhido geedkan hoostiisa laakiin kolkan waxaa loo dhisay qolal ardaydu ay gabaad ka dhigato oo wax ku barato sidoo kale waxaan tagnay dugsigan oo markii hore qabyo ahaa maantase qabyo baxay isaga oo la dhammaystiray dhismayaashii wasaaradda waxbarashadu ku kordhinaysay waa dugsiga Shira Jaamac iskuul ka mid ah kuwa ugu taariikhda dheer degmada Caabudwaaq wasaaradduna waxa ay sheegtay in dadaalkaasi dhisme shaqadu dhaafsiisan tahay sidoo kale xaqiiqo ah oo aad og tahay innaga sanadkaas galmudug oo dhan 2 arday ka dhacdo oo kaliya halka Soomaaliya 5,000 arday ka dhacdo meesha marka aan beegsanayno oo annagu aan higsanayno ka wasaarad ahaan waxay tahay inaan noqono state-ka ugu tayada fiican xagga waxbarashada magaaladan waxaa ku taal jaamacadda ummadda Soomaaliyeed laanta galmudug oo markan 70 jir iska diiwaan gelinayo taasi oo muujinaysa baraaruga waxbarasho ee ka jira galmudug waxaan ku dhiirigelinayaa intaga yaryar iyo intaga waaweynba inay ka faa'iideystaan fursad qaali ah haystaan adduunka aan ka jirin soo dhawaada jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee qaybta galmudug xarunta Caabudwaaq xubnaha guddiga ardayda ayaan subaxdan kula kulannay jaamacadda iyaga oo xilligaasi gacanta ku haya hawlo bilicda jaamacadda looga shaqaynayo xamdi waxa ay gudoomiye u tahay urur haween oo lagu magacaabo Marwo kaas oo ay ku midaysan yihiin gabdhaha jaamacaddan dhigta waxa ay sheegtay in ay halkan ka qabteen tallaabooyin waxqabad oo bogaadin mudan
ayadoo jirto nabaad guur badan isbeddello cimilada ka dhacay waxyaalo badan oo abaarta sabab u ahayd ayaan waxaan garabsanay inaan sameeyno dhir abuuris badan ilaa waxaan taarget gareynay 10,000 oo geed inaan abuurno bisha soo socota ayaan fulin doonaa qorshaha 10,000 oo geed oo aan abuuri doono degmada jaamacadda iyo meel walba muhiim ah jaamacaddaasi ku taal darafta magaalada haddii aan ka dhaqaaqnay waxa aan u qunnay dhanka koonfur oo dhuusamareeb naga xigto annaga oo sii marray deegaankan huurshe sida meelaha kale waa magaalo siyaadaysa waxaana dhowaan xarigga laga jaray iskuulkan baahidii aan hadda ka hor ugu nimi ama ay soo gudbiyeen dadka reer huurshe ee dhinaca waxbarashada ahayd gaar ahaan dugsiga sare ee huurshe in laga hirgeliyey aad iyo aad baan dadka reer huurshana ugu hambaliyeyna leenahay waxay idiin tahay runtii noo wada tahay fursad wasaaradda waxbarashadana waxaan leenahay waa mahadsantihiin huurshe iyo deegaanadii kale ee baahida waxbarasho ka jirtay sidaad uga jawaabteen iyo sidaad uga howlgasheen dhugo halkan waa bangeelle labadan muuqaal waa 2 sano oo isku xiga laakiin sabanku isku mid ma aha oo waxaa dhab u aragtaa kala duwanaanta muuqaalada bangeelle oo sanadkii hore kolkii aan maraynay geelu sibirta iskula jiray ariguna sidan u daaqaayay maanta waa jiilaal maalintaasi waxaan u gudubnay dhuusamareeb annaga oo markan ilaa 10 beri galmudug ku dhex safraynay si nabada dhanka midaynta galmudug mid ah oo isku furan cirif ilaa cirif min hobyo ilaa iyo dhuusamareeb gaalkacyo ilaa iyo cabudwaaq isku furan gaadiid lagula kala socon karo diyaarada aan loo kala raacayn amni ah subaxdii dambe ayaan qaadnay jidka laamiga ah annaga oo ku jeedna guriceel oo aan goor barqaa tagnay waa magaalo ganacsi oo iyaduna iskuullada loogu roonaaday sida deegaamada kale ee galmudug guriceel waxa ay ugu ballaaran tahay degmooyinka dhowaan la ansixiyey ee ka mid noqonaya kuwii hore ee galmudug sannad walba waxaa siyaadaya ardayda ku biiraysa iskoollada magaalada tan ilaa 7 tuulo oo galaasyo caadi laga dhisay fasalla cusub laga dhisay iyo wacyigelin badan oo lagu sameeyay dadka reemiga abaabul badan oo waxbarashada xaggeeda lagu sameeyay taasi waxay keentay koror xagga waxbarashada in magaalada waxbarashada ka jirta ay kororto maadaama deegaanada miyiga ardaydu markay waxbarashadii fahmeen muhiimadeedii ay magaalada u soo diga roganayaan waxa ka timid natiijo aad u fiican magaaladan waxaa laga hirgeliyey dhismahan oo wasaaradda waxbarashada galmudug ugu tala gashay in lagu barto cilmiga xanaanada xoolaha kaasi oo ardaygu marka uu dugsiga dhexe ka baxo si toos ah u gali doono magaalada la yiraahdo guriceel waxaa laga hirgeliyey dugsiga sare ee xanaanada xoolaha oo qofku markuu fasalka 8aad ka baxo oo toos u aadayo iskuulkii xanaanada xoolaha hobyo waxaan ka qorsheynaynaa oo mar dhow aad arki doontiin haddii ilaahay yiraahdo dugsigii kalluumaysiga oo ardaygu markuu fasalka 8aad ka baxo oo toos u aadayo dugsiga kalluumaysiga si pilot ah degmada caabudwaaq iyo cadaado ay hadaad xogteeda haysiin ay uga bilowday in laga hirgeliyo dugsiga farsamada gacanta si magaalooyinka midba wax loogu tijaabiyo dugsiga beeraha galmudug waxay ka hirgelinaysaa meesha ugu munaasabsan oo ay macquul tahay oo degmooyinka ka mid ah haddii ilaahay yiraahdo muuqaalkan muujinaya tallaabooyinka muhiimka ah ee waxbarashada galmudug qaaday waxaa duubay maxamuud jaamac jookar waxaana soo jeedinaya aniga oo maxamed xasan dhalaah